maxaa dunida ka dhici doona bay dhahdeen hadday carabi midowdo hadda muslimka oo dhan maaha waa inta carabta ah waxay dhahdeen hadday carabi midowdo maxaa soo bixi lahaa waxay dhahdeen 8 qodobo soo socda iman lahaa hadday carabi midowdo dhulka ay degan yihiin intay leegtahay hadday isku darsadaan bay dhahdeen inta carabta sheegata 13 milyan iyo 500 oo kun oo kiiloomitir murabbac bay leeyihiin dhul ah sukaanta degani waa imse dadkoodu waa 385 milyan waddanka saddexaad ee dunida ay noqonayaan China iyo India oo qura carab ka badanaysa marka la isku daro waddanka saddexaad ee dunida ay noqonayaan ciidankoodu intuu leekaanayaa bay yidhaahdeen ciidanka carabeed bay yidhaahdeen waxay imika haystaan haddii la isku daro 4 milyan oo askari 9,000 oo diyaaradood oo dagaal 4,000 oo diyaaradood oo helikobtara 19,000 oo dabaabadood iyo 51,000 oo gaari dagaal bay haystaan bay yidhaahdeen waa intaynu inagu isku dildilayna una dee la isugu duulayo waa ciidamada dunida ugu xoog badan wax ku dhadhow bay soo baxayaan dhulkooda beeruhu muxuu noqonayaa bay yidhaahdeen 84 milyan oo hektar ayaa Suudaan oo qura ka abay yidhaahdeen dhul beereed la beeri karo taa macnaheedu waxa weeyaan bay yidhaahdeen Suudaan hadday beertaan 760 milyan oo tan oo sarreenay soo saari karaan sanad kasta 370 milyan oo neef oo lo ay ku beeri karaan 410 milyan oo neef oo adhi ay beeri karaan 850 milyan oo digaag ay samayn karaan waxay yidhaahdeen saxaaraha Liibiya oo qura 8% ka mid ah haddii lagu xidho maxaa la yidhaahdaa solar system haddii lagu xidho 8% saxaaraha Liibiya kaliya 20 milyan oo megawatt hour buu soo saaraya yani dunidu leyd uma baahna waxay tilmaamaan shidaalka dunida 24 milyan oo barmiil bay maalin kasta soo saaraan macnaheedu waxa weeyaan waxa shidaal dunida laga soo saaro thuluthkeed ay carabi soo saartaa wax ku dhadhow zakada bay yidhaahdeen xoolahooda 2.5 ka ah xoolaha maxfuudka oo qudhe bangiyadooda yaalla haddii laga bixiyo 29 milyaar 29 bilyan oo dollar oo zakaaba sanad walba ka baxaya iyagu dee zakada cidda la siinaya ma yaqaaniin xaggii dhismahay ula kaceene waxay yidhahdeen haddii dhismo lagu dhiso sanad kasta waxay dhisi karaan bay yidhaahdaan 25 magaalo oo min 1 milyan oo qof ku nooshahay oo 10 dhakhtar oo midkiiba uu qaadi karo 550 sariirood oo leh 20 iskuul oo iskuul kasta uu dhigan karo 3,000 oo arday oo leh 3 madaar oo 10 milyan oo qof sanadkii ka soo degi karto oo leh 7 jaamacadood oo jaamacad kasta 25,000 oo qof dhigan karto wax soo saarka waddanku wuxuu noqon doonaa 5 trillion 990 billion dollar buu noqon doonaa yani intaajkooda maxalliga wax soo saarka marka carab la isku daro wuxuu noqonayaa xawaalay 6 trillion oo dhadhow sanadkiiba wuxuunba ka badnaan doono qura bay leeyihiin Maraykan iyo China iyo Itixaadka Yurubi marka waddanka afraad ee dunida ugu dhaqaalaha weyn bay noqon doonaan yani xoogga carbeed waa ka waa carab qura in ka warramayna muslimka ma warramayno 86 dawladood oo muslima jira 56 ka mid ah ku jira qoladii maalinta dhaway jiraysay taawun islaamiga ka mid ah masaaxada dhulku almost wala 230 milyan oo kiiloomitir murabbac marka la isku daro muslimiinta idan ayuha al-ikhwa xooggeena inaynu sida awrta aakhira aragna maahay waxaynu u baahnaa inaynu umadeena xooggeeda tusno intay dunida joogaan haddaanay ninna u baahnayn caalam islaami nuclear power wuu haystaa oo aqoon-yahan wuu haystaa oo dhallin wuu haystaa oo dhaqaale wuu haystaa oo dhul wuu haystaa oo xoolo wuu haystaa oo wax bini aadam uga baahan yahay dunida ku nool ma jiro aadanaha kale wuxuu soo dhan uu ka maarmi karaa